mid ka mid ah qisooyinka cajiibka ah ee laga soo wariyey amiirkii muuminiinta Cumar bin Khataab ayaa waxay sheegaysaa sida caadada ahayd isagoo habeenada ka mid ah dhex dawaafaya magaalada si uu uga war helo xaaladda shacabku ku sugan yihiin ayaa waxa uu soo maray nin hor fadhiya gurigiisa gudaha gurigana uu cod ka baxayo taahoo kale ah. Cumar bin Khataab ninkii ayuu su'aal weydiiyey waxaana uu ku yiri muxuu yahay dhawaqa qaylada ah ee guriga gudihiisa ka baxaya. ninkii waxa uu ku jawaabay waa xaaskayga oo foolanaysa oo cid la joogta aanay jirin. arrinta ayada Cumar bin Khataab aad ayay u xanuujisay. gurigiisii ayuu dib ugu noqday amiirka muuminiintu wuxuuna u tagay mid ka mid ah xaasaskiisii oo la oran jiray Kalsoom. wixii raashin guriga yaalayna waa uu soo qaaday waxaana uu dib ugu soo laabtay oo ku soo noqday gurigii ninkii xaaskiisu foolanaysay. xaaskiisii ayuu wuxuu amray inay u tagto gabadha oo ka fooliso isaguna wuxuu bilaabay raashinku uu soo qaaday inuu dabka saaro oo kariyo. cabaar kadib markii hal cabaara joogay oo cuntadii uu dhammaystiray xaaskiisii ayaa waxay ogeysiisay in gabadhii ay umushay wiil waxayna tiri ugu bishaaree aabbihiis in wiil u dhashay. Cumar bin Khataab ninkii ayuu u bishaareeyey wuxuuna u sheegay inuu wiil u dhashay. sidoo kale waxa uu sameeyey cuntadii uu kariyey ayuu xaaskiisa u dhiibay waxa uu ku yiri gabadha umusha asii. cuntadii ayay siisay waa ay dhergisay markay dheragtay kadib intii soo hadhay ayay albaabka soo dhigtay. kadibna Cumar bin Khataab amiirkii muuminiinta Ilaahay ka raali noqday intuu cuntadii soo qaaday ayuu ninkii u geeyey oo waxa uu ku yiri war hoogaaga cuntadan cun sababtoo ah xalay oo dhan waa soo jeeday oo waad murugaysnayd. sidoo kale waxa uu ku yiri subaxii marka uu waagu bariyo igu kaale xafiiska aan ugu taliyo ummadda ama meesha aan uga taliyo waxaan ku siinayaa waxaad naftaada ku dabartid. subaxii ayuu yimi kadibna waxa uu siiyey waxa uu naftiisa ku dabaro. qisadan cajiibka waxaan ka fahmaynaa sida amiirkii muuminiinta Cumar bin Khataab uu uga duwan yahay madaxda islaamka sheeganaysa ee caalamka joogta. bishaaro waxaa loogu bishaaraynayaa dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed ee daafaha caalamka joogta in markaska Al-Hidaaya Islamic Center uu diiwaan gelin doono arday cusub. markaskan ayaa waxa uu bixiyaa duruus ay ka mid tahay aasaaska diinta islaamka sida higaada qur'aanka oo hab tajwiid loo barayo, caqiidada, barashada farteena Soomaaliga ee dhaqanka iyo in waliba salaada laga saxo iyo waxyaalaha caqiidada ku tacalluqa. haddii aad u baahan tahay waxaad nagala soo xiriiri kartaa lambarkan aan kuu sheegayo +2529054445550. aad baa u mahadsantahay.